iyadoo muddooyinkii u dambeeyay dadka danyarta ee ku dhaqan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ay cabasho xooggan ka muujinayeen mas'uuliyiinta dawladda hoose degmada Burco ee xarunta gobolka Togdheer oo ay sheegeen inay barakac balaaran ku hayaan isla markaasina ay mar walba ka kicinayaan goobaha ay kala soo baxaan nolol maalmeedkooda ayaa waxa muddooyinkii u dambeeyay magaalada Burco ka dhacay mudaharaado ay dadkaasi danyarta ay kaga soo horjeedaan mas'uuliyiintaasi dawladda hoose degmada Burco waxaana saaka xaafadda Baarsiyo ka mid ah xaafadaha magaalada Burco ka dhacay mudaharaad laga soo horjeedo goob la sheegay in laga kiciyay dad danyar isla markaasina la sheegay in la siiyay ganacsato halka wadada hawdka u baxda dad baa laga iibiyay imikana laambiga bartankiisii halkii laga kiciyay baa la qodaya haddii qof dhisanayana oo ay dhul ka baaqatay annaka xaq u leh oo dhisanayna xiriirtii baa la iibiyay tii kale la dhisaya Sheekh Bashiir baa la iibiyay sayladii baa la iibiyay waan ku ganacsan jirnay maalintiiba waan ku degi jirnay habeenkiina waan ku guuri jirnay waxa laga iibiyay maanta oo la siiyay dad dhistay baa la siiyay maadaama annaguna shacabkii deganaa meesha ee danyarta ahaa ee ku ganacsan jiray waxaan codsanaynaa xukuumadda sharafta leh iyo madaxweynaha iyo xisbiga kulmiye codka doonaya haddii aan loo dhicin maanta goobtaan ku ganacsan jirnay dadka danyarta ku ganacsan jireen shakhsiyaad gaar ah la siiyay waana laga raray waxa la diiday 2 maalmood in aanan oolin meeshii nooca ahayd dhulka ahayd hal weeg intaanaan joogin baa la yiri waa dhul laga iibiyay dad annagu halkan mudaharaad baan u taaganay midna naga galabsaday baan u taaganay halkan wadaya waa tii garoonka kubadda cagta hortiisa mari jirtay siirooga laga dhiga bartankeedii istiraatiijiyad ahayd guri baa laga wada waxaana la leeyahay dawladda hoose soo bixisay geesta kale waxa halkaasi ka hadlay xogayaha dawladda hoose degmada Burco iyo waliba xildhibaan ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka iyagoona u hadlay si kala duwan waxa weeye tambareeri dadkana lagu siiyay maalinta loo baahdo wadada dadkan waa laga furaya wax wada aanu iibinay boqol jeer baan idinku celinay haba yaraatay ma jirto ninkan muwaadinka ayna wada laga iibiyo ma jirto waxaan u sheegayaa in ay jiraan arrimo ka dhacaya dawladda hoose oo ay wadaan maamulka fulinta oo ah ku hantida ummadda cabsi la'aan xildhibaanada cabsi la'aan populationka ummadda mas'uulka aanu ka nahay waxa weeyaan waxa jira dhulal badan oo hantidii guud ahayd oo lagu takrifalay oo maayirku uu ka mid yahay uu siiyay cid khaas ah kabaarsiga waxa weeyaan arrinkaas waa arrin sharci darro ah cidii ku kacdana mas'uulka Ibrahim Farax Macaan iyo Cable TV Burco.